wareegga dhiigga caadada sida caadiga ah waa 28 maalin, laakiin dumarku waa ay ku kala duwan yihiin. dumarka qaar waxa ay helaan dhiigga maalinta 21aad maalinka ku xiga, halka dumarka qaarna helaan maalinka 28aad maalinka ku xiga. caada wareerku waa in hooyadu hesho dhiigga 21 maalin ka hor ama 35 maalin kadib maqnaashaha dhiigga 3 bil iyo wax ka badan oo isku xiga. dhiig aad u badan ama aad u yar oo dareen lahayn, iyo dhiigga oo 7 maalin ka bata socoshadiisa. inta badan dhiiggu waxa uu socdaa 7 maalin ugu badnaan. gabadhu waxa ay heshaa dhiigga sanadkii celcelis ahaan 11 ilaa 13 jeer, hadba siday ugu kala duwan yihiin wareegga dhiigga caadada. caadadu waxa ay bilaabataa xilliga qaangaarka inta u dhaxaysa 10 jirka ilaa 16 jirka, waxa ayna dhamaataa xilliga caada joojinta ee hooyadu gaarto inta u dhaxaysa 45 sano ilaa 55 sano. kala duwanaanshaha tusaale 1. haddii caasho ay hesho dhiigga caadada maalinka 21aad maalinka ku xiga oo uu socdo dhiigga 7 maalin, wareeggeeda caadada waxa uu ku egyahay 28 maalin. maalinka 28aad wixii ka dambeeya waxaa bilaabanaya wareegga kale ee caadada. markaa caasho waxa ay heshaa dhiigga caadada sanadkii 13 jeer. 2. nasro waxa ay heshaa dhiigga caadada maalinka 28aad maalinka ku xiga, waxa uu socdaa dhiiggu ama dhiiggeedu 7 maalin. wareeggeeda caadada waxa uu ku egyahay 35 maalin. maalinka 36aad waxaa bilaabanaya wareegga kale ee dhiigga caadada. markaa nasro sanadkii waxa ay heshaa dhiiggeeda caadada 11 jeer. asbaabaha caada wareerka 1. waxyaabo la xiriira xaaladda oo qofku ku sugan yahay sida walwalka, isla hadalka iyo cabsida. 2. qaab nololeedka qofka sida in qofku aad u cayilan yahay, inuu aad caato u yahay, inuu almito saa'id ah sameeyo, iyo ugu dambeyn xanuuno uu la nool yahay qofku. 3. dawooyinka uu qaato qofku sida dawada caada saxaha ah contraceptives. dawooyinkan waxay ka samaysan yihiin hormones kuwaas oo ka ilaaliya ugxaanta inay u diyaar garowdo saykalka caadada. 4. burooyinka ilmagaleenka. burooyinka minka ka soo baxa ee isugu jira burabiyoodka iyo kuwa derbiga minka ka abuurma. 5. cillado ku dhaca nudayaasha minka endometriosis. cillada oo sababta in xubnaha minka ay meel kale ku abuurmaan sida dhicirka iyo qaybaha kale ee caloosha. 6. caabuq ku faafa xubnaha ilmagaleenka PID sida kafka, minka ilaa ugxaanta. caabuqan waxaa sababa noocyada kala duwan ee bakteeriyada. 7. ugxaanta oo shaqada joojisa premature ovarian insufficiency. xaaladan waxa ay ka dhacdaa dumarka laga daweeyay kansarka iyo kuwa ku nool meelaha shucaaca leh. sidee looga hortagi karaa caada wareerka? 1. qaab nololeedka oo wax laga bedelo sida in qofku isticmaalo raashinka qolofta leh, salbukada, digirta, jirdhis fudud oo uu qofku sameeyo, iyo yareynta xaddiga miisaanka haddii qofku aad u cayilan yahay. 2. iska saarista buuqa iyo qofku inuu nasiino iyo neecaw qabow qaato. 3. haddii gabadhu ka mid tahay orodo ama ay samayso almiito xaddaaf ah waa inay iska joojisaa. 4. haddii ay jiraan xanuuno sida infekshinka kaadi mareenka, qoyaanka xubnaha dumarka, in la daweeyo. 5. ugu dambeyn qaadashada dawada caadada lagu saxo. daweynta caada wareerka. 1. daweynta caada wareerka hadba waxa ay ku xiran tahay waxa sababa caada wareerka oo la ogaado. dawada ku habboona la siiyo sida probiyoodka, infekshinka, hormoonada oo isbeddel ku yimaado ama yaraada, ama minka nudayaashiisa oo meel kale ku abuurma. 2. qaadashada dawooyinka joojiya xanuunka caadada sida ibuprofen, hyoscine, diclofenac iyo waxyaabaha la xiriira. 3. intaa kadib waxaa la siiyaa bukaanka haddii laga maarmi waayo dawada metformin, taas oo caawisa samaysanka ugxaan qarxinta iyo saxidda caadada. 4. dawada dhalmada lagu raadiyo ee isugu jirta estrogen iyo progesterone oral contraceptives. qoraaladan iyo kuwa lamid ah oo ku saabsan hooyada uurka leh laga soo bilaabo marka ay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso iyo 6 bil ugu horeysa xanaanada ay u baahan yihiin ilmaha dhashay, waxaad ka daalacan kartaa qormooyinkiisa buugga qoys deeqe kaas oo aad ka heli kartid lambarada shaashada ka muuqda. waa mahadsantihiin.